waxay tiri miskiintan markii hore Jinba ii uureeyey oo mataanaha caloosha aan ku sido jin i xoogay ayuu ka imaaday laakiin xaqiiqadu waxay noqotay arintaasi mid khilaafsan gabadhan waxa la arkay ayadoo uur leh waayii hore waa qarsan jirtay laakiin maalinba maalinta ka dambaysa caloosheeda waa soo weynaanaysay marka uurkeedii bishii 8aad uu marayay ayaa la weydiiyay waxa lagu yiri waxa kan maxay yihiin maxaase ku haleelay waayo gabadha lama qabin oo nin ma lahayn xageed ka keentay ceebta tan waxay tiri jin ayaa i kufsaday oo xoogay inay iska difaacana waa kari waay dadkii hadalka waa rumaysteen oo wax jira oo xaqiiqo ah inuu yahay ay hadalkan u qaateen waxayna u keeneen kuwa badan oo faalolowye ah wax tiltilmaama si mushkiladan ama dhibaatadan ay u xalliyaan laakiin waxba lagama faa'iidin nin caalim oo meeshaasi qisadu ka dhacday ku noolaa ayaa arrintii maqlay gabadhii ayuu imaaday wuxuu ku yiri uurka kaniya iska leh markaasay tiri jin ayaa i kufsaday oo i xoogay inaan iska difaacana waa awoodi kari waay marka jinkaas ayaa igu xadgudbay ayay tiri caalimkii ugu jawaabtay gabadhaas ninkii caalimka madaxu ruuxay wuxuu yiri maya ma dhici karto jinsi ahaan uguma xadgudbi karaan uguna xoogi karaan jinku insaanka ee waxa jira noo sheegtaa ka rumaysan mayne arrintaas ilaahay awood uma siin jinka inay insaanka ku sameeyaan ninka sheekha hadalkiibu gabadha ku soo celceliyay awood buuna saaray ilaa ay tiri markii dambe maya waa runta ee jin ma ahan waxa ii uureeyey ayadoo si daran u ooyeysa ayaa waxay tiri uurkan aabahay ayaa ii yeelay aabahay ayaa i xoogay bay tiri isagaana uurkan ii yeelay ninkii sheekha booliska ayuu wacay oo arrintii u sheegay aabihiina waa la soo qabtay qisadana waa qiso dhacday oo xaqiiqo ah oo aabahaas dambiilaha uu gabadhiisa ku sameeyay waxayna dhacday 1977 waxaana qisadaas soo tabiyay sheekhi la oran jiray Cabdulxamiid al-Kishki alayhi raxmatullah